waad salaamantihiin dhammaantiinba. Mowduucan waxa uu ku saabsan yahay sababaha keena in ay salaadu kugu adkaato. Waqtigan aynu ku sugannahay dhalinyaro aad u fara badan, culayska ugu weyn ee haystaa waa in ay joogteeyaan salaada. Qaarkood badan waxaad arkaysaa oo isku dayaya in ay tukadaan, balse laakiin haddana ay buur kaga culus tahay inay joogteeyaan tukashada salaada. Haddaba qodobadani waa qodobo keenaya in aanad salaada joogteynin amba ay kugu adkaataba salaadu. Qodobka koowaad waxa uu noqonayaa in aad tahay qof aan salaada marka uu tukanayo ku raaxaysanin oo waqti siinin. Waqti kastood isku dayday inaad salaada ku nafisto oo waqti siiso oona degdeg u tukanin, waxa aad noqon doontaa qof ay salaadu ku duxdo, iimaankiisuna uu xooganaado. Balse haddii aanad waqti siinin oo ka degdegto adigoo ku degdegaya arrimo dunawiya, intaa aad tukanaysana ka fikiraya arrimo dunawiya ama arrimo adduunyo, waxaad noqon doontaa qof aan ku raaxaysanin salaada, ay hadhow fududaatana inuu salaadaba ka tago. Qodobka labaad wuxuu noqonayaa in aad la saaxiib tahay asxaab iyaguna sidaadoo kale oon salaada si toos ah u tukanin, balse laakiin googooya amba ka boodbooda. Muhiimaddu waxay tahay in markasta cidda aad la saaxiibayso aad iska eegto oo aad il gaara ku eegto oo aad iska shaandhayso ka hor intaanay noloshaada saameyn taban aanay ku yeelanin. Qodobkani waxa uu inoo sheegayaa in haddii aad raacdo asxaab aan salaada tukanin ay adigana saameyn kugu yeelan doonaan. Qodobka saddexaad waxa uu noqonayaa in aad tahay qof aan ducada waqti siinin, oo waqtigu salaada ka baxo degdeg uga soo baxa masaajidka ama sijaayada degdeg uga kaca oo aan ducaysanin, waqtina siinin ducada iyo adkaartii loo baahnaa inaad akhrido salaada kadib. Tanina waxay ku badi doontaa in aanad wax dhadhana ama wax macnaa aanayba salaadu kuu samaynin, ay noqoto uun waxay tahay inaad tukato. Qodobka afraad waxa uu noqonayaa waxa aad tahay qof ka horreysiya salaada oo shaqooyinka ugu muhiimsan yihiin salaada. Yacni salaada waxaad ka dhigataa waxa ugu dambeeya ee aad qabato markaad hawlaha dhammaysato. Haddii tahay qof noocan u dhaqmana salaada waad ka caajisi doontaa. oo tusaalahaan kale haddii aad caweynayso oo waqtigii salaada cishaa ay leedaamo deetana aad tiraahdaa hadhow toolaa tukan doonta markaad guriga tagto, caqabad bay kugu noqon doontaa. Markaad guriga timaadana waad caajisi doontaa, shaydaanku wuxuu kuu sheegi doonaa iyo naftaaduba in ay tahay inaad beri toolo bilowdo oo jamac ku wada tukato, taasoo maalinba maalin ku dhiibi doonto ilaa aad aragto inaad salaadiiba aad ka tagtay. Qodobka shanaad waxa uu noqonayaa ma tihid qof xil iska saara ama ku dadaala inuu salaada waqtigeeda tukado. Sida hawl kasta oo muhiimiba ay u leedahay waajib ah in aad xil iska saarto, ayaa ay salaaduna u leedahay. Salaaduna waa waxa ugu muhiimsan, waana waajibka ugu culus Ilaahay subxaanahu wa tacaala ee dhakadeena uu saaray. Waajib baanay ku tahay qof kasta oo muslina ama dhalinyaro ha ahaado ama qof weyn ha ahaadee inuu ka soo baxo oo ku dadaalo in aanu dhaylsanin ee uu isugu geeyo juhdigiisa iyo dadaalkiisa oo dhan. Waxaan rajaynayaa in qodobadan noqdaan kuwa inay anfaca. Sidoo kale waxaan idin xusuusinayaa inaad asxaabtiina la wadaagtaan si ay noola faa'iidaystaan. Aad iyo aad baad mahadsantihiin dhammaantiin.